Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay xarumaha wasaaradaha gaadiidka iyo duulista hawada iyo wasaaradda dekedaha. Sidoo kale waxa uu kormeer shaqo ku tagay Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dekedda magaalada Muqdisho oo howlo shaqo ballaaran halkaasi ay ka socdeen. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka warbixiyay kormeeradii shaqo uu ku tagay wasaaradaha gaadiidka iyo duulista hawada, wasaaradda dekedaha iyo dekedda magaalada Muqdisho. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Waxaan kormeer shaqo ku tagay qaar ka mid ah wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda oo ugu horeysa wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista iyo sidoo kale dekedda magaalada Xamar. Ujeedada kormeerka aan ku tagay waxay ahayd in aan ku galo sida ay u socoto shaqada ay wadaan wasaaradaha xukuumadda iyo hay'adaha xukuumadda. Waxaan soo arkay in shaqada wasaaradda dekedaha iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista labadaba si fiican ay u socdeen. Wasiiradii halkaan kula kulmay howlahooda wataan, wasiir ku-xigeenada, agaasimayaasha iyo shaqaalaha wasaaraduba. Sidoo kale dekedda Xamar oo aan tagay soona maray waxaan ku arkay shaqada wanaagsan ee ka socota ilaa 4 markab oo waaweyn oo containero iyo cargo gudba sida ayaa ku soo xidhay. dhaqdhaqaaqa dekeduna aad buu u sarreeyay. Shaqada ay maareeyaha dekedda iyo shaqaalaha dekedda wadaan aad bay u socotay. Meel fiican baanay runtii maraysay. Taasi waxa ay tar weyn u tahay dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha ee dalka iyo nidaamka maamul wanaagga ee dalka ka socda. Shaqadii iyo servicekii iyo adeegkii iyo bulshooyinka Soomaaliyeed loo qabanayo iyo in dakhligii laga shaqeeyo, shaqadii socoto, dawladdu awood u hesho inay waajibaadkii saarnaa ay gudato oo ay fuliso. Howlo wanaagsan baa ka socda. Waxaa hawshan kormeerka iyo isla xisaabtanku ay socon doontaa. Wasaaradaha kale iyo hay'adaha kale dawladda haddii la yidhaahdo waa booqan doonaa war loogu gudbin doono. Shirkadda maalgashi ku sameysay ama ka shaqeysa Albayrak waxay ka shaqeysay carrasaarka iyo biraha daxalaystay in laga soo saaro oo qaarkood aad soo aragteen kuwa indhaheenana ku aragnay horena ay uga shaqeeyeen. Hadda waxaan kala hadalnay in ay sii wadaan qalab iyo maraakiib kale keeni doonaan oo kasii shaqeeya carrasaarka si maraakiibta waaweyn ugu soo xidhan karto iyo biraha kale daxalaystay ama maraakiibta burburtay ee ku aasan meelaha qaarna looga bixin lahaa. Waxaa kaloo kala hadalnay ballaarinta shaqada ay hayaan si dhaqdhaqaaqa maraakiibta ku xidhanaysa iyo containerada iyo qalabka kusoo degayaaba ay usii laba jibaarmaan. Sidoo kale maareeyaha dekedda iyo shaqaalaha dekedda sidii ay dardargelin lahaayeen shaqada fiican ee ka socota dekedda una wada shaqeyn lahaayeen. Marka meel fiican bay maraysaa. Waxaan is leenahay waa sii taabageli doontaa, sii laba jibaarmi doontaa shaqada wanaagsan ee ka socota. Abdullaahi Maxamed, Jubaland TV, Muqdisho.